isugu timid u midowday dantooda iyo dalkooda iyo diintooda iyo inay walaaleeyaan dadkooda dhisaan qiyamkiisa iyo karaamadiisa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad baan ugu mahadsantihiin sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa shacbiga Soomaaliyeed oo runtii anigoo Cabdikariin Sheekh Muuse naanayseeda qalab dhagaxda aad loo yaqaan magacyadan Cabdikariin way wada badan yihiin oo qabashadii iyo jariimadii xamar ashxaas yar oo ay geysatay aad uga dhiidiyay runtii isgarab taagay dambiirkii walaalnimo muujiyay Soomaali oo dhan bideeyay runtii waxay ahayd taariikh laba ilaawaana oo ku tusaysa dadka Soomaaliyeed inuu yahay dad walaalo ah isku jiid ah isku dad ah isku dan ah qaraabo ah wada dhashay Soomaaliga jooga لو يعض باب المندق يمتك شوق NFD يمتك شوق أشعة يمتك شوق حلقة دير عيشة دير نبض عكسها أول صومالي قفت صومالي وكم يسين ضميرك ولا النمية صومالي وحي كان خايبين ياي وعدو صوماليين وحي اسكتير ياي وعدو صوماليين وهل ضلشوا وهل أمة sabab ay ku kala tagi karaan ma jiro waxay ka guuleysan doonaan cid kasta oo cadawgooda iyo xaasidkooda ay ka guuleysan doonaan waxay ku guuleysan doonaan Ilaahay magaciisa iyo kartidooda iyo iimaankooda ay ku guuleysan doonaan waxay noqon doonaan ummad gaadha aayaheeda iyo qiyamka ummadeeda dhisay noqon doonaan aad iyo aad u mahadsantiin walaalayaal waxaan xoojinayaa midnimada isku duubnida iyo sidii loo ummadda Soomaaliyeed مدوينك مقسمين هي كرقيبين اسكو ديريد إن دب لو وضع بدايو دب لو وضع ورالايو بلانت أنو واتاسير وكره وحان شعل عين أنا أيضا الدردارنو شعبك الصومالي ده يا شعبك ورمضو واللبضد ورالاه ودرسه والدين يضل يديجان انتو وضع بدن وذا حاجة سيدا دكتور معلو بكرام ولا دولنا ما هن مد إياك كتبت سيدا أنو أميسان حي ما يصنعين waxay ahayd mabaadii qorshaysan oo loogu talagalay in lagu cibri dheerayso ilaa haddana way socotaa mishinkaas iyo shirqooladaasi waxaan filayaa inay weli socdaan waxaan u soo jeedinayaa labada qowmiyadood ee walaalaha ah in ay iscafiyaan wixii ku kala maqan isu celiyaan wixii xaq ay siiyaan wixii hanti ay isu celiyaan gacmaha isqabsadaan walaaloobaan wada dhistaan dalkooda wadadka isugu xaq weyn waynu hubnaataa dhammaanteen waynu wada hubnaa idinka oo intiina badan hadda aan filahay ama wada ah qowmiyadii Soomaaliyeed booqda walaaladii qowmiyadda Oromada walaalnimo iyo nabad ku wada noolaada iyagana waa mubaax inay diyaar u yihiin inaad walaalowdaan wixii hore dhacay laga toobad keeno Ilaahay loo soo noqdo aayaha ummadda iyo qiyamkeeda in la wada dhiso horumar la wada gaaro in loo soo noqdo inay diyaar iyaguna yihiin waanuba guuleysta assalaamu calaykum dhamaan Ilaahay baa marka ugu horeysa baan naqaynaa maanta inagoo xor ah oo nabada inuu guuleystay haliyay Cabdikariin oo qalbi mideeyay loo bixiyayna soo daayay Soomaali oo dhan way u hiilisay sidoo asagu baray ayara kabtamay waxa weeye wali timaa ku yaala maalintii la intuu xinaaba aan halkii ka bilaabay midba bilaar baa ay gashay 20 sano marka ku jiray marka waxa weeye hal adeega dadka Soomaalida u baahan inay ilaashato mabaadiidooda aan bedelin aan lacag siisanin Soomaalinimada aaminsan dadka Soomaaliyeed walaalo yihiin aaminsan marka walaalayaalo go'aanka waxa qiimo soo jeediyay ay ku wada dhaqanno inagoo mid ah cadaalad iyo sinaan iyo doolan hadii Ilaahay yaho oramaduna waa dad walaalaheena aan la isku kaadirin innaga dhaxleena aan la isku kaadirin dadka qabiilka la wareegay raba inay maaragtay qabiil ugu kala qaybiyaan reehbel waxa weeye system iyo maamul ayaa meesha ka jira qabiilka ma jiro marka systemka meesha ka jira ayaynu ka soo wada horjeednaa cadaaladaynu raadinaynaa reer lagama soo horjeedo reer keliya waxa ma rabaan inagoo Soomaaliyeed midaysan taasuna Cabdikariin taagayaan ugu waafaqaysan